surely now Spain have won the World Cup for the first time in history. Andres Iniesta has broken Dutch hearts. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan ciyaarta qiimiga iyo qadarinta inaga mudanow ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka ciyaaryahanada kubadda cagta ee caalamka. waxaana barnaamijkeenana ku faaqidi doonaa geesigii lama filaanka ahaa. gadgadoonka waayaha isbedelada waqtiga ayaa ka dhigi kara qof jihada noloshiisu ay tahay mid aan la tilmaami karin. hase yeeshee waxaan muuqaalkani uga hadli doonaa ninka ay dunida ugu magac dartay geesigii lama filaanka ahaa ee Andres Iniesta. waxa uu leeyahay miiska gadaashiisa ayaan la geli jiray kubadda. nolosha caruurnimadeedii oo dhani waxay ahayd kubadda cagta. waxaan aadi jiray iskuulka subaxa hore halka galabtiina aan aadi jiray tababarka. waxa kaliya ee aan oran karo waan tabayay waqtigaasi oo dhani waa in aanan haysanin qoys ii dhow. inta soo hartay waxba ma ahayn. su-aal la weydiiyey macallimiin iyo ciyaaryahano dunida caanka ah ayaa jawaab celintoodii waxay noqotay kuwo aad u cajiib ah. su-aashu waxay u dhaceysay, maxaad ku sifeyn lahayd ciyaaryahan Iniesta? ciyaaryahan Neymar ayaa waxa uu leeyahay, waxaan dhihi lahaa waa ciyaaryahan gaar ah oo sixir ah. sidoo kale macalinka u dhashay dalka Spain ee Pep Guardiola ayaa yiri waa ciyaaryahan dhab ah. goolhayihii hore ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Juventus Buffon ayaa Iniesta ku tilmaamay inuu yahay dhalanteed ama sixiroole. weeraryahankii hore ee u dhashay xulka qaranka Uruguay Luis Suarez ayaa yiri wuxuu ahaa spiritka ama dhiirigeliyaha kooxda. macalinka u dhashay dalka Holland ee Louis van Gaal ayaa isaguna waxa uu leeyahay waxaan ku jeclahay inuu yahay ciyaaryahan kubadda cagta dheela, laakiin sidoo kale bini aadam ahaanna waan u jeclahay. weeraryahankii hore ee xulka qaranka Spain Fernando Torres ayaa ku tilmaamay Iniesta inuu ahaa qof daacad ah. weeraryahankii kooxaha Barcelona, Inter iyo weliba Chelsea ciyaaryahan Samuel Eto'o ayaa yiri waan ka duwanahay, aad ayuu u cad yahay, aniguna aad baan u madoobahay, laakiin waxaan isku jecel lahay marka dhanka kubadda cagta loo fiiriyo si aad u weyn. sidoo kale Marquinhos ayaa yiri waa ciyaaryahan tayo saafiya leh. laacibka khadka dhexe ee xulka qaranka Spain ahna kabtanka kooxda Barcelona Sergio Busquets ayaa waxa uu ku soo koobayaa Iniesta inuu yahay saaxir. sidoo kale Messi ayaa waxa uu leeyahay waxaan u maleynayaa in Iniesta uu yahay qof gaar ah, ciyaaryahan ahaan iyo weliba qof ahaanba. dhanka kale mid ka mid ah taageerayaasha Iniesta ayaa leh aniga ahaan waxaan ku sifeyn lahaa qoobka ciyaare weliba qoobka ciyaaraha ugu fiican ee kubadda cagta aan arkay. kabtankii hore ee xulka qaranka Spain Puyol qoobka ciyaaraha garoonka dhexdiisa aad ayay u wanaagsan tahay in la daawado isagoo ciyaarayo. BK ayaa isaguna yiri Andres Iniesta waxaa dareemaysaa in uu kubadda ku dheelayo ama uu ku ciyaarayo. laacibkii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain ahna laacib in badan ay kubadda isdhaafsadeen ciyaaryahan Iniesta ee Xavi ayaa isaguna waxa uu leeyahay eray ahaan waxaan dhihi lahaa bini aadamnimadiisa ayaa ah mid aad u heer sareysa, laakiin waa hibada ugu weyn ee kubadda cagta Spain ee aan weligay arkay. daawade intaas ayaan ku soo afjarayaa qaybtii koowaad ee barnaamijka sooyaalka ciyaaryahanada kubadda